sidoo kheyr waxaan ka hadli doonaa dagaalkii iyo duqeymihii iyo xasuuqa maanta ka socda magaalada Dolo. Magaalada Baradaxa oo dagaal ka socdo oo noo dambeyn doona kanaan ku horumareynaa xaaladda meesha ay hadda marayso. Xalay habeennimadii saqdi dhexe markay ahayd 6 saac ayaa weerar lagu qaaday xarunta Nisa ee magaalada Dolo. Waxaana weerarkaasi geystay gudoomiye Lafay oo ciidamada Itoobiyaan wato. Ciidanka Itoobiyaankan waxay duqeeyeen xaruntii degmada markaasi Nisa. waxaa ku jiray taliye shaqaalo iyo 30 askari in ka badan ay halkaas ku sugnayd dagaal toos ah lagu qaaday. maxaa marka raggan loo weeraray macnuhu muxuu yahay? waxaa loo sheegay raggan inay hub ay haysteen oo ilaa 7 tiknika ah ay haysteen iyo hub meesha ku xareysnaa keed ah inay soo wareejiyaan oo ay ku wareejiyaan ciidamada Jubbaland ee halkaas ku sugan ama ciidamada Itoobiya inay ku wareejiyaan way diideen. hadda ka hor sanadkii hore dagaal sidaan oo kale u dhacay oo isku soo dhiibaalay ciidamada dawladda maxaa la yiraahdaa Itoobiya way diideen dagaal ay la galeen. haddana dawladda federaalka Soomaaliya aydan jawaab ka bixin su'aalo la iska weydiinin ayaa haddana xalay la weeraray meeshii. gudoomiye shaqaalo iyo raggiisii ayaa meesha lagu duqeeyay. rag badan oo saraakiil ah meesha ku dhintay kuna dhaawacmay. Itoobiyaan kale wax badan laga dilay. halkaas markii dhibaatadii ka dhacday waxaa sii dheeraad xalay 9 saac iyo bar markay ahayd habeenimo ayaa raggii gacanta lagu dhigay dhinacyada madaafiic loo keenay. gaadiidkii qayb ka mid ah madaafiic lagu gubay. rag saraakiil iyo ciidamada halkaas ku dhinteen. ugu dambeyntii taliye shaqaalo iyo 6 nin oo saraakiil ah ayaa la qaatay. waxaana loo qaatay dhanka iyo Dolo dhanka ciidamada Itoobiya ee qaybta kale. halkaas xero lagu xareeyay. xeradaasi ayaa markaas la geystay waana xiran. waxaa marka meesha taagan waxay tahay gudoomiye Lafay Itoobiyaanku la shaqeysta waa la ogyahay. ciidamada Jubbaland iyo Lafay iyo maxaa la yiraahdaa Itoobiya waa iska warqabaan. ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya xarunteedana waa la weeraraya. dad marka waxay ku leeyihiin maxaa Itoobiya waa in la jiraa Itoobiya in dad Soomaali la safato ee dad Soomaaliyeed kala leysa sax ma aha. xasan sheekh maxamed inuu adasaba ku sugnaado mahad salaadna adasaba ku sugnaado ciidamadii Soomaaliyeedna lagu xasuuqay Dolo sax ma aha. Itoobiya dhawaato u geysatay ciidamadaas hadda korna waa xasuuqday haddana dhawaato u geystay sargaalka ku sareeyay taliye shaqaaluna xabsiga dhigtay. maxaa marka meesha ka jiro? xasan sheekh inuu Itoobiya joogo maya ma salaad ma inuu Itoobiya joogo maya sax ma aha. waxay noqonaysaa dadka ku xasuuqay ee ardaydaada askartaada iyo ciidamadaada shacabkaada xasuuqay inaad ag joogto waa qalad. xasan sheekh wuxuu dhahay gobolka Gedo inuu kala hadlo saraakiisha inuu halkaas ku sugan dalka Itoobiya Abiy Ahmed way diideen gobolka Gedo inay faraha kala baxaan way diideen. dawladda federaalka Soomaaliya iyo maxaa la yiraahdaa Jubbaland ay heshiiyaan waddanooda loo daay way diideen. waxay yiraahdeen kalama baxeen. xasan sheekh shirka maanta uu tagi lahaa muusan tagin. marka inuu iskaga soo tago Addis Ababa go'aan la gaaro. waxaa balansan hay'adaha amniga ee dawladda federaalka Soomaaliya hay'adaha amniga dalka Itoobiya. xalay habeenimo la wacay waxaa la yiraahdaa dagaalka joojiye way yeedheen mana joojin dagaalka. saraakiishan way xireen. hadda marka saakay banaanbaxa bilowday oo loogu talagalay dadkii shacabka ee xalay dhibaatada la geystay iyo ciidamadii la weeraray ee loogu soo horjeedo ciidamadii dadkii jooga magaalada Dolo banaanbax bilaabay. waxayna ku bilaabeen ciidamada Itoobiya xabadana la dhaxay dhimashada dhaawac oo meedku waa daadsan. taas marka maxay muujinaysaa? dad Soomaali isdagaalay waa la arki jiray. Soomaaliyeed isdagaashay heshiisa wax Soomaali ka dhaxay waa Jubbaland iyo dawladda federaalka Soomaaliya wax ka dhaxay waa wax Soomaali ka dhaxay. laakiin waxa ku saaray markii Itoobiya gantaali iyo madaafiic kula dhacaan dad waxay taageerayaan Itoobiya leeyin waa sax in ila laayo oo ninkaas la xiro. xasan soo dirsaday xasan tuuga soo dirsaday xasan tuug muxuu soo dirsaday kan uu soo diray Axmedow malaa'iga Axmedow soo diray kuwan Axmedow soo diray oo Lafay leeyahay oo Itoobiyaanka dawladda ku wato waa sheekh miya kan oo maxaa la xashiqay dawladda federaalka socdaan waa tuug miya warnimo ilaahay ka baqa Itoobiya haday tagto qadiideed baash way fogaatay. anagu marka hore dagaalka dhexdhexaadan keenay Jubbaland iyo dawladda laakiin hadda haday Itoobiya soo gashay waa qalad Itoobiya inay soo dhex gasho. Soomaaliya isdagaalayso ciidanka meesha ku sugnaa 50 kama badnayn kuwa maxaa la dawladda Jubbaland 300 askari u joogtay ayaa ku filnaayo ka qaadan karo baad rabaan la dagaali kari. laakiin sida wax u dhacay sax ma ah. dawladda federaalka Soomaaliya ciidamadeeda xaq mu leeyahay inay joogaan Dolo ha xaq u leeyahay. balad xaawin inay joogaan xaq mu leeyahay ha. hadda shalay Jubbaland ma ka howlgalayeen oo dawladda Soomaaliya dagaal ma ka galayeen Jubbaland iyo danab iyo ciidamada Jubbaland ha. laakiin maxaa uu leedahay maxaa la yiraahdaa xasan tuuga soo dirsaday inta saana Highland kan Itoobiya soo dirsaday cali shaqsi Axmedowna Itoobiya soo dirsatay ma anaga waxaan u sheegaysaa wax aan macno lahayn. Itoobiya soo dirsatay Abiy Ahmed oo shaqeynaa Axmedow balad waxa rabta qaad oo sheeg oo qayli xasan tuug wada ku haya. xasan tuug waxa ka daran kan hadda maxaa la yiraahdaa in Itoobiyaanka dawladda ku watay ilmaha Soomaaliya ku dhameynay. taas ina fahantaa loo baahan yahay laakiin aska qaylisama mid kale shacabkeena waa la laayay. magaalada Baradaxa waa tagna dagaal culus ka socdo ciidana oo ciidamada dawladda iyo Jubbaland u dhaxay xaaladu faro ka baxay. marka dadka Soomaaliyeed dib weyn ay ku dhex jiraan oo ah fahamkii ka maqan. xasan sheekh iyo Axmedow iyo dadka kale dhan siyaasiyiinta kulli nin walba hunguri oo dhimana
hunguri inta loo dhimanayna soomaalida ma saxmayso. hunguriga la iska daayo, qadiyadii Soomaaliyeed xadgudubka Itoobiya looma jeedo. Soomaalida ayada isku xoog leh, hebel wataa inta saan hebel waa maxaa la anaa ka xoog badan. waxaas nolol ma aha. Soomaalidu way halawday, Soomaalidu way xumaatay, siyaasiyiintu meel xun marayaan. xasan sheekh iyo maxaa la yiraahdaa salaado wada aqli leedihiin oo maskaxdiina dameer ku jiro iskaga soo tagay Itoobiya. sababtoo dadka Soomaalida la xasuuqaya sax ma xasan sheekh asaga dharta dadkan isaga mas'uulka ah. Itoobiya dambe xasan sheekh lugtaada hadaa dhigto dowladnimada Soomaaliya oo burburaysa oo dhamaatay. maalinta Itoobiya aad saaxiib la noqotay ayaa markaas fashilantay. farmaajo shal Itoobiya ku jiray, adiga maanta Itoobiya ku jiro, wax Itoobiya faa'iido ilaa ma jirto. dagaalka ka socdo iyo ummadda Soomaaliyeed la xasuuqayo qof aan xisaabinayn madax ma noqon karo, dowladnimadana ma hogaamin karo. haddii maamul goboleedyada ay caloosho shaqaystayaal noqdeen imaaraadda Itoobiya u shaqeynayaan, adigana kuwii u shaqeynayaan aad u tagaysid, maxaa meesha yaalo? wax ma yaalan. waqtigaas ka lumin, waqtigaas kaga lumayso meeshaan ma yaalo. qof kale ha loo dhiibo. xasan sheekh aan rabin hadda kadib, farmaajo aan hadda kadib rabin, nin kastoo Itoobiya saaxiib laan rabin, nin qadiyadda Soomaaliyeed waardiinana loo keeno oo Soomaalinimada xushmeynaya. Itoobiya markay gaarto xiriirka iyo madaxtinimada iyo dowladnimada way dhamaanaysaa. haddii waxaa la Itoobiya baahi soo gaarto. Itoobiya dowlad deegaanka Soomaalida waxay ku sameynayaan waa aragtay. shidaalkii Itoobiya laga xiriirsaday, dadka dowlad deegaankana ma hadli karaan. ogkooda hadda degmooyin lagu soo daray ma hadli karaan. degmooyinka iyo waxa la isku dhaxqas dadka madaxayna isla garan la rabo. Oroma soo weerartay oo dhulkooda boobayso, cid ka hadlaysa ma laha. hadda kuwaas doolar lagu dhameenay, cid ka hadlaysa ma laha. Buntland kuwaas fargelinta ku hay oo la dhahay marka lama dhiibay Itoobiya ka dambeysay imaarad, cid ka hadlaysa ma laha. marka intee noo wada qof muusan wax fahmin. marka xasan sheekh adiga ku sii soco meesha la Itoobiya waxa ka hesha arki doontaa. shirkaas inaa ka qayb gashay dan kugu jirin, inaa Itoobiya tagtaa qalad ahayd. shalay Masar heshiis la gashay amni, maanta inaa ku sii ordo maaha. taliyaha nisa muxuu ka qabanaa? taliyaha nisa Itoobiya muxuu ka qabanaa Maasalaad? ilaan wiilkii maxaa la yiraahdaa wiilashii maxaa la dhahaa Soomaaliyeed ee halkaas nisa u shaqeynaya xabsiga lagu guray oo ku xiran magaalada Doolow maanta waliba asagoo dhaawac la haysta oo ku xiran yahay meesha. maxaa marka aad qaban kartaa? maxaa dowladnimadaadu ay tahay? maxaad ka faa'iideysaa Itoobiya? barnaamijka saan dan ma ahayne Soomaalida saan ha loo dhaamo, dowladnimada saan ha u shaqeyso. nin walba Itoobiya dawada la galo weligiis ma liibaanay. shacabka Soomaaliyeed ninka fidna ku hogaamin weligiis ma liibaanay. Doolow wax maanta ka socdo waa wax la yaab leh. shacabkii Soomaaliyeed oo banaan bax isku dayay ay dukum caruur iyo ciroolo wax badan laga daalay oo ciidanka Itoobiya iyo lafay gudoomiye lafay kala daalay. lafayna wala la xisaabtami doona. haddii xasan kula xisaabtami waayo, madaxweyne kale imaan doona kula xisaabtami doona. ama Jubbaland u shaqay, ama waxa u shaqeysaa ninka la yiraahdo Itoobiya u shaqay, ama maxaa la yiraahdaa saraakiil Itoobiyana ku gumaa dadka. waqtigan uu iska dhamaan doona. adduunyadu wareegta waay. lafay oo maxaa maanta waxba ahayn waa la arki doonaa. markaan waxaan leeyahay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya halkaas ku xiran nisa dowladdu amar ha ku bixiso in la soo daayo. kulana loo balansan yahay, kulankaas loo balansan yahay ishaan ku hayn doonaa wixii ka soo baxay sida Soomaaliya uga jawaabto. haddii Soomaaliya si sax uga jawaab weyso, Soomaalinimadu waa dhamaatay, Soomaaliyana Itoobiya la wareegtay. taasay noqonaysaa wax dambe oo ka hadal ah iyo wax dambe oo qadiid ah iyo wax dambe oo Soomaalinimo la isugu imaanay. haddaan tan lagula xisaabtamin Itoobiya oo wiilasna aan laga soo deynin, hubkii ay gubeen aan la weydiinin, xisaabtan dambe ma jiro. sababtoo waxa way dhibaato meesha ka socoto. dada soo orday waa arkay oo qaalinayo dhahay way ku saxsan tahay hala weerar. waxa way dowladda xasana soo dirtay. waxa dowladda xasan xaq u leedahay raas Kamboni ilaa raas Casar inay tagaa ciidamada xaq u leedahay dowladda Soomaaliya. sababtoo waa dowlad iyo dowladda maamul goboleed xagga ka imaadeen. dowladda Jubbaland, dowladda Puntland ay lagu leeyahay xagga dowlad ka yihiin oo maamul goboleed. barnaamijka ummadda ha weerarinaya. barnaamijka shirgaray meel fog gaarsiinta barnaamijka limkum doon xal lanahay fi amaan.